سما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى بشتاني وبالآن ربنا لبا وح إنا نهله كو إن إلهي دنبقا قدافه هذا ما هي إنه يد الدنب كررسانه dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay waxay dhahdaan culimadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedka waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow dee isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كلا دراسين جرا ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسيان كتابك الله إلى هذا الكيس إذا بشة نبي علماء ضوي هذا وابلو قفك مسلم كي أحد حده إنه كتب برو إلهي كتاب كيسو فهمه إلهي محو نلشة كربه إذا بشة وابلو قفك مسلم كي أحد حده ورب الإلهي وركي سفهم مرته ربي وحا وكوش يجيو رب السماوات والأرض يا أديك قولها الله بذاتك تذكر القرآن كمرك آخرين يعني عدك لك فكرة عدك لك فكرة أديكم بقى إلهي لها الله قف الوقار كي سألوا الله الله وحيابا بشة وآت كوقب بنشري النبي عليه الصلاة والسلام ومد المسلمين توفروا وحكم ده قيام الليل كتراويح ده صلاة ده بدن اللي تكون هنا صلاة ده بتصطه وحيابا الله سفروا وحكم ده بشة آت كان لو جد ده ليه ونبي سمين شري التصدق صدقات إنه وين إنه نجوح عنابين وبدنين إنه تذكر وحنسينه سيدا أوجد أي سحابي محولها nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan ee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyay maya ma oran aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyay aan maya oranin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fi ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay وحبينتي سكر ريح المرسلة ويهيد بحديث المامية سيدي دبايل دبانيسا دبايل ببانيسا ما دبانيسا أيوة لماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعدتي سوي فري بشتاني وبالمركات ضدك مسلمين التكافل الاجتماعي سنة حريستان فقراء وحلسية مساكين وحلسية قرابة الله حريرية طلق الله حريرية ادوال بوحلسية يا ابو النبي بيشن سمين شري وحكم ده iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobankaa maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay حتى حلال أجر لوجو قريو كتجيو أجر كوين وراديني النبي عليه الصلاة والسلام حين وتلا نكو قبل لي سمركو وطقو دو حلال وطقو أجر بالله قرا سيد الحديث كان يقول شيء لكن طبعا كان مع الموضة الدنب مع الدمر ولا قفقانية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإلهين هوان كان أهل الله نغمنا
idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bishan ka shaqeeyo 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidaalika baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horreeyaan idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay idhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda daba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanaه wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidii aynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn